maanta halkani waxaynu uga hadli doonaa 10 magaalo ee ugu quruxda badan daafaha dunidan. Nambarka 10aad, magaalada Bruges. magaalada Bruges waa magaalo aad iyo aad u qurux badan dhacda waqooyi galbeed dalka Belgiumka. magaaladani ayaa waxay caan ku tahay xagga ganacsiga. magaaladani ayaa waxay leedahay dhismooyin kala duwan oo cajaa'ib badan oo loo dhisay noocyo kala duwan. magaaladani ayaa waxaa badankeeda la dhisay qarnigii 13aad. magaaladani ayaa soo dhaweysa dalxiisayaal badan oo uga kala yimaada daafaha dunidan. Nambarka 9aad, magaalada Budapest. magaalada Budapest waa caasimadda dalka Hungary waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan ee sanadkan 2018. magaaladani ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn qaaradda Yurub. magaaladani ayaa waxay hoy u tahay dad kor u dhaafaya 2 milyan, iyadoo celcelis ahaana soo booqdaan dad gaaraya ilaa 4.4 milyan sanadkiiba. Nambarka 8aad, Roma ayaa ku jirta magaalooyinka ugu faca weyn uguna quruxda badan qaaradda Yurub, iyadoona hooy u ah dad kor u dhaafaya 2.8 milyan. Roma ayaa kaga jirta kaalinta 4aad magaalooyinka ugu waaweyn marka loo eego magaalooyinka kula jira qaaradda Yurub. magaaladani ayaa weli waxaa ka sii muuqda taariikhdii iyo ilbaxnimadii ay lahaayeen Romaankii. maanta Talyaanigu wuxuu kaga jiraa kaalinta 3aad ee waddanka ugu booqashada badan qaaradda Yurub. Nambarka 7aad, Florence waa magaalo kale oo ka tirsan dalka Talyaaniga waxayna halbowle u tahay dhaqaalaha qaaradda Yurub. magaaladani waa magaalo kale oo aad iyo aad u qurux badan. Florence ayaa waxay qani ku tahay dhaqanka iyo weliba farshaxanka, iyadoona hal mar rikoodh ahaan u heshay dad ka badan 10 milyan. Nambarka 6aad, Amsterdam waa caasimadda dalka Netherland waana magaalada ugu weyn ee ku taala dalka Netherland, taasoo ka dhigaysa in Amsterdam ay tahay ay ku jirto magaalooyinka ugu qurxoon uguna caansan. Amsterdam ayaa dadkeedu waxay caan ku yihiin baaskiilada, iyadoo magaalada badankeedu ay yaalaan biyo. dadka badanaa waxay isticmaalaan baaskiilo si ay uga gudbaan magaalada geeska gees, iyadoona magaalada badankeedu leedahay buundooyin yaryar oo loogu talagalay baaskiilada in lagu wado. kaalinta 5aad, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Brazil. magaaladani ayaa waxay tahay magaalada 6aad ee ugu dadka badan dalka Brazil. magaaladani ayaa waxaa dhaqaalaha uu ka soo galaa xeebaha, hoteelada, baararka, iyadoona sanad waliba soo dhaweysa dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan oo kaga kala yimaada dacallada dunida. magaaladani ayaa waxay caan ku tahay hidaha iyo dhaqanka, ciyaaraha iyo weliba kubadda cagta. kubadda cagta ayaa ka leh qiimo aad iyo aad u weyn, iyadoona dad badan oo taageerayaal kubadda cagta ay halkaan soo booqdaan si ay u daawadaan ciyaar toos ah oo ka socota garoomada waaweyn ay leedahay Rio de Janeiro.
Nambarka afraad, Lisbon. Lisbon waa caasimadda dalka Boortaqiiska, waana magaalo ay caan ku tahay ama halbowle u ah waxbarashada, ganacsiga iyo weliba dhaqaalaha. Magaaladu waxay caan ku tahay buuro dhaadheer, guryo midabeysan, taasoo ka dhigaysa in ay dalxiisayaal badan indhahooda ay soo jiidato. Nambarka saddexaad, Prague. Waddanka ugu nadaafadda wanaagsan adduunka, Czech Republic. Prague waa magaalo madaxda dalka Czech Republic, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu nadaafadda wanaagsan. Waxay kaga jirtaa kaalinta 14aad magaalooyinka ugu waaweyn marka loo eego magaalooyinka kula jira European Unionka ama Midowga Yurub. Magaaladani ayaa shaqo la'aantu waxay gaaraysaa kaliya 2% ama 2%, taasoo ka dhigaysa inay tahay magaalooyinka ugu lacagta badan ama ugu taajirsan adduunka. Nambarka labaad, Paris. Paris waa caasimadda dalka Faransiiska. Paris waxaa lagu naanaysaa magaaladii jacaylka. Taariikhaha Paris ayaa qaarkood la helay qarnigii 3aad, ayadoona dalxiisayaasha usoo dalxiis taga magaalada Paris ay aad u jecel yihiin inay booqdaan towerka loo yaqaano Eiffel Tower. Paris ayaa sidaas ku soo gashay kaalinta 2aad ee liiskeena. Nambarka koowaad, Venice. Waa magaalo kale ka tirsan dalka Talyaaniga. Venice waxay ka kooban tahay 117 jasiiradood oo isu tegay, kuwaasoo isku xira buundooyin. Dadka badanaa waxay ugu wacaan magaaladan Venice magaalada biyaha. Fadlan haddii aad videogan ka heshay, fadlan subscribe si aad noola socoto marka aan dambe fiidiyoyaal cusub soo dhigno.